wadada labaad ee xaafadda Parkland guri dabaq ka kooban 5 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha oo qiimihiisu yahay 230,000 doolarka Mareykanka ayaan maanta insha Allah doonaynaa inaan ku samayno touring gurigani aan isla aragno aan qiimeyno kadibna aan go'aansano qiimaha markaasi aan siisan karno inaga hadii aan nahay daawadayaasha markaasi ku xiran Farm TV iyo Malab intaba gurigani insha Allah maadaama uu yahay 5 bedroom oo duplex ah kor iyo hoos ah cabirkiisana uu yahay ilaa 350 square meter kolley waxa waaye kuwa noocooda aan wali lagu arag inta Soomaalida ay dhisto maalmahan dambe laga yaabaa inay xabxabad ay jiraan balse shirkadda gurigani soo saartay soo dhisaysa waxa waaye shirkadihii ugu horeeyay ee guryaha markaasi duplex ka ah cabirkoodana intaasi uu yahay kalin had la ka ciyaara kolley guriga marka albaabka ugu horeeya ka soo gasho albaabkan waa u jeeda tayadiisa iyo designka iyo sida uu markaasi yahay waa design iska normal ah macquul ah haddana aad moodo midabkeeda guduud mise casaan haddana marun ahaan kiisu u yar dhow culayska iyo safety-ga markaas ay leedahay waxaa moodaa in ay tahay kuwa fireproof ka ah sidoo kale waxa ay leedahay glasskaasi oo aad u jeedo translucent aad ka arkaynin banaanka haddana iftiin yar soo gelinayo guriga markaas sidaas u soo gasho waan kuu sheegay maalmahan dambe clock room wax la ayaa jira Soomaalida badankeeda waxay ku leedahay macaamiisheena qaar waxa arkaysa ku leeyahay de guriga markii saa loo soo galo masquusha ayaa waxa ka bilaabaysa dhinaca midigta waa maxay so masquushani fikrad ahaan waxa loogu talagalay qofka martida ah markuu guriga sidaas u soo galo in masquusha uu arko hadhow dambe hadii uu masquul u baahdo uu ku weydinin intuu soo dhunto uu iska galo marka ma garatay so clock masquushaasi oo very clean ah waa iska jawi degan yaris waaye fadhiga masquusha sinkigi muraayadii wall tile-ki nalki very nice beautiful ma laga sheekayn karo qol yar isku dheelitirano dhameystiran waaye gurigani sirta horta waxa waaye sida u jeedo habka u jeedo design-ka u jeedo ayuu ku imaan doonaa hadii halkani aad ka iibsato hadda waxaad indhahaga ku aragto ayaa ku helaysa guriga marka laga reebo qalabka furnishka ee alaabta furniture-ka marka imaato halkani waxa dhigan kartaa geedkani oo iska artificial ah wall art ay halkani ku samaysan kartaa dhankani waxa ka qabanaya storage room waxa rabto aad ku xareysanayso aad gashanayso sidaasina u isticmaalayso iyo sida aad jeceshahay sidoo kale darbigani waxa lagu sameeyay wall art ayna bacaadi ahayn wallka waxa uu leeyahay roof ahaan oo gypsum ah intaana gaarin dhankani bidix waxa kaga muuqanaya stairs-ki aad ku tagaysay qolasha qaybta hoose waxa markaasi lagu sameeyay jikadii fadhigii qolkii martida qolkii shaqaalaha laakiin qolasha kale ee afarta ah kor ayaan ugu tagi doonaa ugu horeyn ma jikadan ka bilownaa mise fadhiga aan waxay la tahay inaan ka bilowno fadhigan ka bilowno fadhiga markaad imaato cabirkiisa dabcan ma laga sheekayn karo inta uu dhan yahay kala arag from here laga bilaabo ilaa iyo qaybtaasi dambe waa fadhiga waxaan u jeedo alaabahani gidigood fadhiga waa very spacious fadhigani marka laga soo tago waxa uu leeyahay balcony sidoo kale qaybtii qadada oo halkani koogu diyaarsan so waxa dhiganaysa 8 seats sadarabto waxa dhiganaysa 12 seats hadba iyo qoyska sida uu markaas u weyn yahay wall art ay halkani dhag ka siinaysa design-kani ma laga sheekayn karo hadda qofkani waxa uu xushay oo uu doortay inuu dhigto miiskani oo glasska hoosna alwaax ka ah design aad iyo aad u qurux badan maacuuntii iyo kuraastii sidaas ay ku galaysaa qadada korkeeda waxa ku samaysan nalkani sida u jeedo nalkan aad arkayso qofkii guri halkani ka iibsada kolley iyaga ayaa u gelinaya sida ay sheegeen shirkadda marka nalka aad aragto downlighter chandelier bulb nooc kale hadii aragto gidigood sidaas ay ku iimaanay doonaan wax walba oo qolkani tusaalaha ku aragto
waa sida uu ka kooban yahay dabaqane ilaa iyo 17 floor ka kooban 18ka 16ka ka kooban so waxa arkaysa nalkani sida uu yahay ayaa ugu imaanaysa so qadada markii laga soo tago halkan waxa kugu diyaarsan console table console kani muraayadani design-ka quruxsan ee la qorqore la hagaajiye frame-ka madowgana la galiye ayaa ku arkaysa so console-kaaga waxa saarnaysa any arts mise decoration oo markaas loogu talagalay mise uu markaas ku soo baxayo so design-ka halkani ayaa ka xadaysa oo aad ka samaysanaysa adigaba console table-ka iyo muraayadiisa oo halkaas ku diyaarsan isla fadhiga ayaan wali dhex joognaa oo wali qolka martida ay halkaas ka muuqda halkan storage kale balse ka hor qaybta fadhiga iyo nasashada kursigani eeg halkan ilaa iyo halkaasi so wixii la dhahay 7 seat ayaa ugu badan ee guryaha Nairobi ka badan 7 seat mise 5 seat mku deeqayo mku galay waa laga soo tagay gurigani 7 seat sheegiye 12 ilaa 15 ilaa 18 design-ka iyo sida jeceshahay sida rabto waa ku deeqaya wow inaba caadi maaha so kuraastani raaxada badan quruxda badan midabka iyo kalarka sida loo xushe markaas loogu shabahe midka wallka iyo gypsumka ilaa iyo TV standka wallka rangiga wallpaper-gaasi dabcan way soo saarayaan wayna u qalantaa wayna soo saaraysa kuna qurux badan tahay fadhiga marka uu sidaas yahay halkani waxa ku jira ujeeda wall art-ka markii laga soo tago qaybtana waxa uu ku leeyahay dhinaca cutting-ka oo waxa ku diyaarsan balcony aan inaba caadi ahayn aad iyo aad u weyn oo sliding doors leh shaqada ka socota wali guriga TV wall-ki waa weyn yahay sida ujeedo TV stand-ki TV-gaaga inta inch ay noqoto 100 inch 120 inch ilaa iyo 85 95 sida jeceshahay had iyo jeer badankeena waxaan isticmaalnaa TV-ooyinka isli waad garataan 55 inch 65 inch laakiin xaafadan markaad joogto wall aad iyo aad weyn ayaa haysataa inch aad damacdo kulley uu ku qadaa oo ku deeqaya TV stand-ka from wall to wall aadka quruxda soo saaraya wall art-ka dhinac walba looga faa'iideystay darbi iska banaan meeshan ma arkaysid rangiga la mariye ku halaawayo waa mid glossy ah sidoo kale qofkani waxa uu markaas ku soo saaray farsamada gurigani wallpaper aan laga garanaynin wallka aad iyo aad u qurux badan soo saaraysa gurigani inaba caadi maaha fadhi hadii la dhaho fadhi raaxo fadhi jawi fadhi lagu nasto fadhi markaas qoyska si fiican ay ugu baashaalaan runtii waa kan halkani waxa ku diyaarsan isagana coffee table inaba caadi ahayn very nice cozy beautiful simple laakiin haddana aad iyo aad u shidan qurux badan roga waa ujeedaa sida markaas loo design gareeyay kulay ma laga sheekayn karo inaba caadi maaha wow fadhiga markaad ka soo dhamaato kulay guriga koow ma joogo halkani waxa ku diyaarsan qolka martida intaadan gelin waxa halkani weelaysa armaajo oo storage loogu talagalay halkani ayaad waxa gashanaysa alaabahaga ona ku xifdinaysa inaba caadi maaha marka qolka martida halkani ayaa ka soo galaysa access qolka martida marka soo gasho musqushiisa ayuu leeyahay very nice iska yaris laakiin hadana macquul ah sizeska normal oo loogu talagalay musqushi qubeyski sinkigi halkan ay ku diyaarsan yahay ma laga sheekayn karo marka soo gasho qolki waa space ahna dil dhaho very normal halkani ayaa ku diyaarsan sariirta martida kadib waxa uu leeyahay French balcony
balkoniga iyo qolka oo isku dhex furan micnaha daaqadii ayaa halkaasi ka arkaysaa. Wow, ma laga sheekayn karo sariirtiisa, wall art-ka, armaajadiisa, wall art dhankani kale, soketyadii, wax walba waa uu dhammaystiran yahay. Qolkani qol marsida dabcan waxaan dhahayaa ku soo dhawaada gurigani waana ku diyaarsan yahay. Sariirtaada halkaasi ay ku diyaarsan tahay, musqushaadii iyo armaajadaadii wax ka maqan ma laha. Gurigani inaba caadi ma aha. Qolka martida markaa ka imaato waxaan dib u eegaynaa jikada iyo markaa qolka shaqaalaha. guri walba meesha wax ku kala socdo waxa waaye jikada hadii ay raaxo taalin mise jikada hadii ay shidneen, jikada hadii spacean markii loo spacious ay ahayn kulay tashwiish yar ayaa ku furmaya qofka. So guriga hadii jikadiisa ay sidan oo kale ay tahay kulay waa dhamays ayaan isleeyahay. halkani waxa ku diyaarsan jikadii oo dabka meeshii qaaca ka baxay watan soketyadii halkaas ay ku diyaarsan yihiin. halkani qaanada ayaa ku qarsoon, qaanadani ayana waa ujeedaa kor ayaa looga faa'iideystay. halkani waxa ku diyaarsan ovenkii, bakingkii, tii foornada, sidoo kale frinjerkaaga halkuu galaya. frinjerka halkan ayuu galaya Soomaa. frinjerka ayaan raadinaynaa meesha uu galaya. aha so storage kale ayaa halkaasi looga faa'iideystay. meesha waxaa lagu talagalay table-kii hadii aad doonaysaan inaad ku sheekaysataan. So sida aad u jeedo oo aad arkayso ayuu gurigani ku imaanaa. waxaan kulli waa lagu sameeynaa, kan waa lagu sameeynaa, halkani waa lagu sameeynaa, kuraastaasi kaliya markii laga reebo. So frinjerka kulli halkaasi ayuu leeyahay. weli dhankani waxaa ku haysataa isla storage kale oo aad iyo aad weyn. jikadii iyo meesha sinkigii biyihii wakwa. nalka jikada u jeedo design-kani iyo habka uu yahay ayuu ku imaan doonaa gedigiis iyo sidaasi ayuu dabcan noqonayaa. halkan waxaa ku haysataa pantry oo lagu talagalay inaad store-ka jikada ka dhigato. alaabtada halkan aad ku kaydsanaysaa, wax walbana halkan ay gashanaysaa, raashinka iyo hadii ay noqoto waxyaabaha aad markaas ka qarsanayso dadka. halkan waxaa weli ku haysataa storage aan inaba caadi ahayn. yani waxaa looga faa'iideysto fursad walba, janis walba oo soo baxa in qaanada la geliyo oo markaas storage ahaan loo adeegsado loona isticmaalo. jikada markaas sidaas uga soo dhamaato waxaa halkani u imaanaysa qaybta laundry-ga mise waa meesha meeritaanka dharka lagu dhaqo, maacuunta lagu dhaqo, wax walba lagu dhaqo. mashiintani tii lagu dhaqayo dharka waxa waaye kulay guriga kuma imaan doono, adiga ayaa la imaanaysa. halkan ayaa gashanaysa gaaska iyo waxyaabahaas halkan ayaa ku qarsanaysa. halkan ayaa gacmo dhaqi ku ah. marka laundry area hadii la dhaho waa sidaasi. albaabkan waa albaabka ay ka soo access garaynayso guriga gabadha shaqaalada. hadii nin shaqaale uu ku joogana halkan ay ka soo galaya. sidoo kale qolka shaqaalaha halkan ayuu markaas ku diyaarsan yahay. isagana nafarkii ayaa u galaya musqusheeda mise musqushiisa halkan ayuu ku diyaarsan yahay. inaba caadi ma laga sheekayn karo. jikada iyo laundry-ga iyo qolka shaqaalaha waa la israaciyo sidiisa ayuuna markaas dhamays ku yahay. guri walba waxa muhiim ah in marka ay noqoto raaxa laga soo tago jikada iyadana gabdhaha markaas raashinka kariya. waayahan dambana rag way ku soo bateen jikada. hadii iyagana markaas ay jikada soo galeen waxay noqonaysaa mid ay dabcan ku raaxaysan karaan. hadii la dhaho ku qaxwe halkani cabitaanada iyo ku qadee marka aad jarjarnayso in lagu sheekeeyo halkani qofka ku fariisanaya. inaba caadi maaha. dhan walbana socket guriga dhan walbo jikadiisa waa uu kala yahay socket. inaba caadi maaha. gypsum yar oo markaasi nalkaasi lagu dhex qariyay, lagu dhex miliyay ayaa arkaysaa. wow, very beautiful. guriga inteena badan waxa uu ka fiirnaa oo ka eegnaa hoos, laakiin kor iyadana waa bilic kale inaba caadi ahayn lagana sheekayn karin. chandelier-kani habkani ayuu yahay from first floor ilaa iyo floor-ka ugu dambeeya. inta unit ee tower-kani ku jirta floor walba waxa waaye 4. qaybta labaad ee guriga tower B-na waxa ku jirta 4 floor kale. so 4 iyo 4 waa 8 unit floor walbo.
mid walbana waxa uu yeelanayaa chandelier-ka nooc walba oo aad yacni aragto sidaas ayuu noqonayaa ilaa iyo qaybta ugu dambe fooqa ugu dambe sidoo kale jikada iyo fadhiga iyo yacni nal waxa khuseeya kulli sidaa u aragto ayuu ku imaanayaa so gypsumka sidan ayaa asagana loo design gareeyay inaba caadi maaha ma laga sheekayn karo waa qurux badan yahay bilicdiisa white-ka iyo nalka markaasi snake lights-ka gudaha la geliya downlighter-ka gudahaas marka aad ujeedo sidaasi ayuu ku imaanayaa flow walbo inaba caadi maaha ma laga sheekayn karo aad iyo aad ayuu qurux badan yahay adigana daawada sidaad u aragto commentiga kusoo qor chandelier-kani iyo gypsumka dabcan mala lamaane oo guriga kusoo baxaya shabahan markii la dhaho qaybta hoose intaas ayaa kugu diyaarsan waa musqushi martida qayb kaloo storage ah jikadii qaybta shaqaalaha diningkii console table-ka dhinaca dhiganaysid fadhigii qolkii martida iyo armaajo kaloo banaanka markaasi aad kaga faa'iidaysanayso musquul marka la qaybtani laba musquul ay ku taala musquusha martida iyo musquusha banaanka ee clock iyo mid aan dhahay guriga martida gudaha ugu taala ma laga sheekayn karo qaybta kore ee marka gurigani qolasha ay dadka seexanayaan ayaan eegaynaa oo aan fiirinaynaa guryaha dabcan waa bedrooms ilaa iyo 4 qol oo jiif ah ayaa halkan ku diyaarsan ayaan isla eegaynaa laakiin waxaa jira shay aan horey kugu sheegin oo dheeri ah oo gurigani markaasi uu leeyahay waxa uu leeyahay qayb fadhi ah oo yariis ah oo loogu talagalay dadka kor habeenkiina ay halkani isaga mushaaxi karaan TV ay halkani ku samaysan karaan wallkani unityada kale inta badan ma qabaan laakiin kan display ahaan ayaa loogu talagalay TV-ga ina halkani saaran karto very perfect space ahaan marka looga faa'iidaystay waxa uu leeyahay sidoo kale TV-giisa waxa uu sidoo kale leeyahay qaybtani oo loogu talagalay inaad saarato waxyaabaha aad markaasi jeceshahay haddii aad ay noqoto haddii ay noqoto buugal display haddii ay noqoto waxyaabaha halkani ayaa saaranaysa marka fadhigani aadka u macaan ee shabkiisa laga sheekayn karin ayaa ku diyaarsan korkiisa wall aadkaasi sidoo kale chandelier-kani ayaa halkani ka muuqda haddii uu bulb ku leeyahayna bulb ayaa ugu magacaabi kartaa waxaa halkani lagu diyaariyay lagu sameeyay artificial plant kaasi oo loogu talagalay in dabcan haddii aesthetic ahaan la dhaho guriga uu soo saaro carpetkii iyo flooga oo markaasi designka dabcan woodenka oo haddana tiles ahaanka inaba caadi maaha ma laga sheekayn karo halkani sidoo kale waxaa looga faa'iidaystay yani nafaas walba soo baxa in marka loo yeelo wall art iyo artificial plants oo markaasi bilicda iyo quruxda iyo nidaaminaya guriga halkan waxaa kugu diyaarsan qolka koowaad ee dabcan aan eegno soona galno kuna soo dhawaano qolkani waa qolka ciyaalka sida kaaga muuqato waxa uu leeyahay jiif laba xabo ah oo loogu talagalay in dadka ay markaasi haweenkii ku qoriyaan wall art-ka ayaa halkani kugu diyaarsan sidoo kale side table-kii sariirta halkaas ay kugu diyaarsan yahay qaybtanna waxaa looga faa'iidaystay in haddii ciyaalka mise carruurta ay waxbarashada habeenkii sii wadan karaan halkan ay isaga akhristaan iyagana ay kaga faa'iidaystaan waqtigooda sidoo kale waxa uu leeyahay daaqadani oo cadceed iyo iftiinka markaasi laga dhuuxayo wallkani sidaad u jeedo ay ku imaan doonaa cutting rodska iyo nalkaasi gidigood sidaas ay ku imaan doonaan wall art waa laga faa'iidaystay sokeetyada waa ujeedaa dhankana armaajada ayaa kugu diyaarsan inaba caadi maaha qolka koowaad markaa kasoo baxdo qolka labaad sariirtiisa waa ujeedaa inaba caadi maaha laga sheekayn karo armaajadiisa halkan ay kugu diyaarsan tahay iyadana very cozy very beautiful very spacious dharka halkani ayaa ku asturanaysa side table-kii oo socket ku leh dhanka kalena waa uu ujeedaa waa uu leeyahay sidoo kale waxa uu leeyahay qaybtii naashnaashka isku diyaarinta muraayada isku eegidda qurxinta haddii qolkani aad go-aansato inaad dejiso gabadhaada koowaad first born-ka ayna weynaato oo ay gaarto 18 meelahaasi kulley makeup way bilaabaysaa casrigan la joogo makeupkeeda halkan ay ku diyaarsanaysaa hooyadeed haddii ay damacdo inay iyadana la marsato kulley kursigani ay ku fariisanaysaa gabadha ayaa halkan u diyaarinaysaa u marinaysaa muraayadan ay ujeedo hoosteeda waxaa la geliyay snake light
very beautiful. Qaanadani waxaa gashanaysaa alaabihii makeupka, halkan ayaa ku guranaysaa. Designka interior designer markii la dhaho shaqo ahaan kolley waa uu ka soo baxay. Just tableka oo derbiga si fiican loogu dhajiye, alaaf kadib waxaa la saaray alaabahani oo midab ahaan markii la dhaho isha ay si fiican markaasi u qabanayso. Qolkani daaqadiisa isagana waa uu leeyahay cadceed haddii la dhaho, iftiin haddii la dhaho, nuur haddii la dhaho, hawa haddii la dhaho, gidi halkaasi ayuu kasoo qaadanayaa qofka. Subaxi waaga markuu baryo qaac daha waa kala rogaysaa. Guriga iftiin ayuu leeyahay. Shayga muhiimka ee mar walbana aan dhahno waxaa waaye guriga daaqadiisa iftiin ma leedahay, cadceed ma soo galaysa, guriga hawa ma leeyahay. Dabcan qolka koowaad aan soo aragnay waa ujeeday, qolka kalena waa ujeedaa, qolkii hoos ee martida waa ujeeday, fadhiga waa ujeeday, jikada iyo kii kalena waa ujeeday. Gurigani waa laga taxadaray design ahaan haddii la dhaho. Qolka waxaan tegaynaa ciyaalka haddana mise qolka saddexaad oo qofkani inta qolkaasi aadin hallway ayaa jira. halkani hallwaygani waxaa kaga faa'iidaysanaysaa sidoo kale midii fadhigan ku soo aragnay, muraayadii iyo console table oo bilicda iyo quruxda guriga soo saarayo. Derbiga dhinacan kale maadaama uu cadin iska yahay, fikrada la keenay aadkani ayaa markaasi lagu dhajiyo lagu sameeyay. Halkan waxaa kugu diyaarsan miraha canabka. hallwayga marka laga soo tago, qolka ay waalidiinta jecel yihiin mise waa qolkani waa qolka la dejiyo garadambeeska iyo dhallaanka. Qolkani waxaa yani la xushe in laga dhigo mid canuga yar si fiican markaasi maskaxdiisa ay ugu kala furmayso. Qolkani kaaga daran waxa uu leeyahay musquul. Musquushiisa waa gudaha. Labadii hadda aan soo aragnay bedroom 1 iyo 2, musquusha banaanka ayay ugu taale oo waxaa ahayd mid ay markaasi isla wadaagayaan. Gudaha kaliya waxay ku lahaayeen armaajada iyo waxyaabahaasi. Laakiin kani maadaama uu kasoo horjeedo qolkii muzeyga iyo maamada, muzeyga iyo maamada waxaa waaye odayga, xaajiga iyo xaajiyada. Qolka يعني interior designerka guriga hadda loo dhiibay waxa uu doorbiday mise uu xushay qolkani inuu ka dhigo mid ka gar dambeeska. Waxa ku diyaarsan alaabahan ay u jeedaan ciyaalka si aysan ugu celi. Alaabahan ay u jeedaan waa dee ciyaal waaye. Sariirtii dhallaanka, babyga sariirtiisa waa tani. halkan ayaa haweenka seexinaysa. Hadduu soo istaago uu soo kaco xitaa kama soo dhaxbixi karo. halkan markii uu soo tooso cunuga halkan ay ku ciyaaraya. Alaa ujeedaa sama alaabana ku ciyaara ku baashalaya. Kadib kursigan ayuu ku fariisanaya markuu weynaado. Kursigani ayuu ku raaxaysanaya. Mise hooyadii ayaa haddana kursigan isaga fariisan karta markay nuujinayso. Mise aabaha ayaa kursigani ku fariisan karaa hooyada markay cuniga halkaasi ay dhigayso. Scooterga geedkani artificialka ah, wall artka dhankan kale saacada cuniga waqtiga muu ilaalina. Cuniga marka la dhigo haddii uu soo tooso kolay waqti xum inay too saacada ayuu ka fiirnaa. Haddii uu arko inay haween bar ee too hadduu fiicayo cunigaasi iska seexana. Haddii laakiin dhiblo uu yaho 9 saac habeenimo cawaade uu oyni. saacada halkaas ayuu ka eegaya cuniga. gurigana cadceed uu leeyahay sidoo kale iftiinka nuurka hawada halkaas ayuu ka qadanaya cuniga. Armaajada tan waxa loogu talagalay cuniga dharkiisa in lagu arooriyo. halkan ayaa dharka lagu xifdinaya cuniga. Wow, yani qofka halkan ku soo barbaaro ku soo karo
kulley wuxuu noqon doonaa wax fiican oo rajaynaynaa musqushani ayaa lagu qabinayaa nadaafadda qabayskii iyo saxaar haddii ay noqoto cunug loo dhigi jiray maxaa la baashi yar lagu fariisanay tunjig iyo waxyaabaha soo laga tagay cunugu soo kacaya meesha uu kasoo dhex bixi musqushu galaya halkaasi uu kusoo xaajoonaya iska soo dhaqaya kadib sirtiisa ku laala bala sheekay karo so gurigani waa qolkii ciyaalka haddii ay noqoto inaad ka dhigto qolka gabdhaha iyadana waa ka dhigi kartaa haddii aad yani waxa rabto sidaa rabto choice-ka adiga iskale laakiin hadda interior design-ka guriga loo dhiibay dabcan design-kani ayuu nagu tusaya naqshad ahaan sida uu kusoo bixi karo musqusha maadaama uu gudaha ku leeyahay qolkii gabdhahana waa la dhihi karaa qolka xaajiga iyo xaajiyadda qolkooda weli inta ay Soomaali dhisaysa guryaha Parkland soo duwaya oo aan arkay kulley master bedroom ma interior design-ka ayuu ka imaaday fikrad ahaan markii la dhaho mise engineer-kii guriga mise qofkii guriga iska lahaa miyuu ka imaaday laakiin gurigani mid aan la yaabay oo aan la tacajibo waaye intaan idin tusin midka master bedroom-ka hal shay oo idinka ilaa idin tusaa kale stairs-ka la soo korayo wall-ka aan dhahe floor-ga stairs-ka kulley waa wooden tiles ahaan markii la dhaho design-ka iyo quruxda iyo bilicda iyo nalalka halkan laga geliyo ma laga sheekayn karo so slippery ahaan markii la dhaho waa very wooden slippery-giisa dabcan waa minimized sidoo kale waxa uu leeyahay chandelier-kana ujeedo quruxda badan aadka u weyn balls ama the globes-na gudaha uu kaga jiro wall aadkaasina waa uu leeyahay markii laga soo tago steps-kaasi mise stairs-ki gurigani waxaa laga faa'iidaystay yani fursad walbo darbiga in wall la geliyo mise in armaajo la geliyo halkani waa for storage waxaa gashanaysaa waxyaabahaaga ayaa ku xifdinaysaa mana laga dareemayo buuqna ma wato waa mid iska jabi degan marka hadda aan eegno qolka xaajiga iyo xaajiyadda master bedroom wow master bedroom-ka waa kani janna kusub master bedroom-ka aad ayuu weyn yahay waxa uuna leeyahay balcony ayuu leeyahay balcony-giisa waa sida midkii fadhiga oo kale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dhererkiisa ma laga sheekayn karo qaybtan kaliya waxaa loogu talagalay albaabka hortaanka xiro qaybtan kaliya waxaa loogu talagalay armaajadii iyo dharkii iyo labiskii iyo isdiyaarintii iyo make-upkii iyo habhaba dhag tana laakiin fahmin macnaheed maxaa waay weligay ma arkin taa anigu aariyahe tan maxaa loogu talagalay horta waxay leedahay storage qaanaday leedahay qaanadahaas u jeedo tirada badan dhankana way ka leedahay laakiin maxaa macnaheed hoos ku soo qor haddii aad garanayso alaabahan weligay ma arag alaabahan haddii aad garanayso hoos commentiga ku soo qor waa maxay waxan ma lagu istaagi karaa war laakiin korkeeda waxaa la geliyay chandelier-kani aadka u quruxda badan aan inaba caadiga ahayn nalkiisana aad eegi karto fiirin karto indhaha ku giiri karto ku taagi karto haddana aan ka aqoonayn indhaha very beautiful so chandelier-kani wuu ku imaanayaa meel walbo laakiin dhanka armaajada markii la dhaho halkan ay kasoo bilaabmaysaa aad iyo aad ay weyn tahay tani ayaa haddana kuugu xigtaa wow haddana tan ayaa kuu sii xigtaa qaybtan kale isla qayb kale haddana qaybtani ugu dambeysa laakiin inta kursi ayaa dhiganaysa make-upkii isdiyaarintii haweyntii alaabihii marashmarashkii cadarkii waxyaabahaasi halkan ayaa tuurinaysaa qaanadan halkan ay kugu diyaarsan tahay iyadana qaybta jiifka ma laga sheekayn karo aad iyo aad ay qurux badan tahay sariirtan ay halkan dhiganaysaa sidoo kale kursi ayaa halkan ku yaala side table-ka way kugu diyaarsan yihiin wall art-ka nalalka gypsum-ka chandelier-ka waa ujeedaa kuraastana waa laba
space markii la dhaho very very spacious yani waxaa ka soo baxay xitaa table kale oo aad iyo aad u dheer oo isagana storage-kiisa wato iyo TV halkaasi ku suran oo aad ka daawanayso sidoo kale balcony-ga waxaa yani ku samaysan daaha iyo si markaasi daa ahaan halkani kaga siiso mugdiga haddii aadan rabin kaligato iftiinka haddii aadan rabin aan dhehe sariirta korkeeda shandaliyalkani aadka iyo aadka u weyn quruxda badan ayaa kugu diyaarsan haddii ay noqoto inaad kor isaga jiido kole wayarkaasi ayaa la gaabinaya kor ayaa loo jiidaya laakiin hadda bilic ahaan design ahaan interior designerka sidaas ayuu doortay oo u xushay gurigani master bedroomka markuu sidani u yahay musquushiisa kole waa mid aan la huri karin aad iyo aad u weyn halkan ay ga muuqataa maadaama darbiga halkaasi uu ku egyahay musquushana halkan ay ka bilaabanayso kole waa ka sheekayn kartaa talow maxaa ku dhex qarsoon oo maxaa ka jira halkani musquusha aan fiirino aan eegno albaabkeeda halkan ay ka soo galaysaa frame-ka waa ujeedaa inaba caadi ma aha aad ay weyn yahay musquusha markaa soo gasho wow alaabaha waa garanaysaan iyo alaabahan alaabahan haddii Soomaali ay barato farax romantic ma mal dhihi karo kolley alaabtani waa bathtubkii aadka u weyn mushaax jawi waqti wow ma laga sheekeyn karo tubadii way leedahay qaybtii wax la saaranay sidoo kale daaqadaasi weyn ay leedahay halkana waxaa ku design garaysan sinkigii oo yani quruxdiisa waxa laga sameeyay waa granite inaba caadi ahayn waxaa sidoo kale halkan ku diyaarsan storage oo haddana muraayad banaanka ka leh wow warniyo design ahaan markii la dhaho this is very very nice this is very very beautiful halkanna weli storage kale ayaa ku haysataa oo dhan walba waxaa looga faa'iidaystay storage musquushi halkan ay kugu diyaarsan tahay inaba caadi ma aha wow flashing-keeda day wallka tilekiisa day very very slippery very very beautiful oo midabka iyo sida isku lahaysiiyay midka granite-ka iyo daaqada frame-keeda sida isku lahaysiiyay dabcan ma laga sheekeyn karo qol ayuu u dhigmaa musquushani haddii aad tagto xaafada qaar dhankana waa cubicle-kii oo qabayska shower-kii dhag wax walba halkaas ku diyaarsan yahay meesha aad saaranaysa saabuunka iyo waxabahaasi wow ma laga sheekeyn karo guriga inaba caadi ma aha waa tahay gurigani kolley waa soo wada aragtay qolka ugu dambeeyay ee aakhirka ahaa waa master bedroomka xaajiga iyo xaajiyada ee qolkooda gurigani waxa uu ku yaalaa xaafada Parkland wadada labaad waana mid dabcan dhamaanaya sanadkani ilaa iyo dhamaadkiisa waa la furi doonaa bisha December haddii aan la furin horteeda ayaa la furi doonaa laakiin hadda finishing waa u dhamaaday waxyaabaha kale ee socda waxa waaye cleaning iyo electrical waxyaaba noocaas oo yar yar ayaa dhamaanaya 3 bil ayay qabsadeen oo ku dhamaan doonaa laakiin iska sii waqti ilaa iyo December kolley waa khalaas waana dhamaaday haddii la dhaho qiimo ahaan kolley qiimihiisa waa 230,000 oo US dollars ah 5 bedroom oo duplex ah qolkii martida u dheer DSQ-gi qabo oo aad soo aragtay oo aan ka sheekeynay dabcan miyuu u qalmaa mise adiga fikirkaaga laakiin design ahaan haddii la dhaho finishing ahaan haddii la dhaho alaabta iyo qalabka iyo quality-ga markaas gurigani leeyahay inaba caadi ma aha mana laga sheekeyn karo kolley waa soo wada aragteen waana daawateen anigu halkaasi ayaan kusoo afjaraya muuqaalka ilaa iyo kulanti dambe waxaa idin leeyahay ilaa iyo kulanti dambe ciao mac salaam